السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا صاحب الكسول ولا عشر كنا مانت يوتيوب كعدقنا سكين أسكو برتين عشر مهمة أنا أتكقالتان ما أنت هل كان إذا كان مقتبع عشر كنا عشرة آد بوجود ونهاي ما أنت وحال هل كان سوق عندنا مهما إنجليش أو ليس a friend in need is a friend indeed صاحبك حلي قال أبا هنتا يكو قرب استاجا كاس أمبا صاحب دبا هذيك مالها صاحب دبا ده قربت من سنة قريب marka waqtiga sidaas noogu dheeraan darteeda aan casharka soo guda galno maanta waxaan ka hadli doonaa san hore soo sheegnayba saaxiibka xilliga aad u baahan tahay ku garab istaaga kaas un baa saaxiib dhaba marka halkan waa sheeko yar oo macnaha aad ku fahmi kartid saaxiibka xilliga aad dhibaataysan tahay ku garab istaaga inuu saaxiib dhaba yahay once upon a time there lived a lion in a forest hadda ka hor waxaa duurka ku noolaan jiray libaax. Once upon a time there lived a lion in a forest. Hadda ka hor waxaa duurka ku noolaan jiray libaax. One day after a heavy meal maalin maalmaha ka mid ah markuu zaid wax u soo cunay zaid u soo dhargay it was sleeping under a tree. Libaaxii wuxuu hurday geed hoostiisa. After a while, waqti yar kadib, there came a mouse and it started to play on the lion. There came a mouse. Halkaa waxaa yimaaday jiir and it started. Kadibna wuxuu bilaabay to play on the lion. Inuu libaaxii soo dhargay oo meeshiis halkaa iska hurda inuu ku dul ciyaaro ayuu bilaabay. Suddenly, isla markiiba the lion got up. Libaaxii wuu soo kacay, wuu soo booday with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Libaaxii isagoo xanaaqsan ayuu soo booday and looked kadib ayuu fiiriyay for those who disturbed its nice sleep. Kuwa ka qasaayo hurdadiisa macaaneyd kuwan ka qasaayo ayuu fiiriyay. Waa jiirka ayaa laga wadaa ama dooliga waxaa taqaanaba. Suddenly the lion got up. Salama filaan ah ama isla markiiba libaaxii ayaa soo booday with anger asoo xanaaqsan and looked for those who disturbed its nice sleep. Kadib ayuu fiiriyay kuwa ka qasaayo hurdadiisa macaaneyd. Waa jiirka madooliga. Then it saw a small mouse. Deedna wuxuu arkay jiir yar ama dooli yar standing and trembling with fear. Jiir yar oo meesha taagan oo cabsi darteed la qarqarayo ayuu arkay oo qarqarahayo ayuu arkay. The lion jumped. Libaaxii wuu soo booday on it. Jiirka ayuu ku soo booday and started to kill it. Kadib wuxuu bilaabay inuu dilo ayuu isku dayay. Markuu bilaabay inuu dilo the mouse requested. Jiirkii ayaa codsaday the lion to forgive it. Libaaxii inuu iska caafiyo ayuu codsaday. Jiirka ayaa ka codsanaya libaaxii ayuu ka codsaday inuu iska caafiyo. The lion felt pity. Libaaxii wuu u yara naxariistay, naxariis ahaan ayuu dareemay and left it. Deedna wuu iska daayay. The mouse ran away. Jiirkii markaasuu cararay uu iska tagay. Halkan libaaxii ayaa jiirkii ayaa la caawiyay. Soo ma jeedid? Marka one another day maalin kale oo maalinta ahayn the lion was caught in a net by a hunter. Libaaxii waxaa qabtay nin ugaarsada ah ayaa shandaro ku qabsaday ama shabaq ku ritay. The mouse came there and cut the net. Jiirkii ayaa meesha imaaday kadib ayuu wuxuu bilaabay inuu ka jaro shabaqii. Thus it escaped. Libaaxii markaasuu meesha ka fakaday markaa. Thereafter wax yar kadib ama after sometimes wax yar kadib the mouse and the lion became friends. Libaaxii iyo jiirkii saaxiibo ayay noqdeen. They lived happily. Si farxad ayay ku noolaadeen in the forest afterwards. Duurka ayay ku noolaadeen ayagoo iska faraxsan xilliga iyo wixii ka dambeeyay. Halkan waxaad ka fahmi kartaa saaxiibka jiirka asagoo la dil rabo ayaa la caafiyay
meeshan libaaxi ayuu caawiyey jiirka libaaxi hadduu maalinkii uu jiirka dili lahay maanta lama caawiyeen insha allahu tacaala videogeyga halkan ayuu ku egyahay adigoo haddaad leedahay saaxiib dhaba qaybta comments inoogu soo gudbi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh isma dhaafin